وبرنامجكي dhaqanka iyo hiddaha dhegaystayaal dadka daneeyaa siday og yihiin ujeeddooyinka maansada digashada ayaa ka mid ah waxaa lagu digtaa ruux aydun col ahaydeenoo siduu cali dhuux odhan jiray markuu kaa gacan sarreeyey aan kuu turine kuu daraa mar dambana intay adiga kuu soo martay aad ka aarsatay amaba ay waayuhu kaaga aareen taas ayaa ugu badan sababaha ay digashadu ku timaaddo sheekada aan maanta idiin hayaase way ka duwan tahayoo sabab kale ayay leedahay waa sabab siyaasadeed waa bilowgii kontonnadii qarnigii 20aad dalka oo idili wuu karayaa in yar mooye ummaddu way isku calooloo dadku way isku wada uur erayo kooban ayaa ruux walba debnaha ka saaran gobonnimo midnimo calan iyo cudud xisbigii kulanka dhallinyarada soomaaliyeed ee SYL ama leega loo yiqiin ayaa iftiinka u sida isaga ayaa markuu doono dadweynaha kiciya markuu doonana fadhiisiya waxaa hoggaanka u hayay rag iyo haween aan aqoon badan lagu kuwiyi jirin ha yeeshee lafta iyo luddaba ay daacadnimo buuxisay ujeeddada weyn ee halganku waxay ahayd midab uu lahaadaba gumaysiga in dalka laga xoreeyo dabadeedna jamhuuriyad xor ah intay dhammaanteed ku midowdo ay noqoto qaran xoog leh oo ay dunidu tixgeliso laga soo bilaabo 1943 markii dhidabada loo taagay ujeeddada oo qura ayuu ururkaasi dadweynaha Soomaaliyeed ka dhaadhicinayay si la yaab lehna wuu ugu guulaystay waxaa ammaanaa ruuxii mabaadi'diisa inta qaata haddana dhaqangelintooda ku hawshooda waxaa la daraabi jiray kolba kii ay soori qaado ee gumaysiga la safta una basaasa xooga gobgobonnimo oo dirirka ah wixii himilooyinka ummadda dhabarka u jeediyey waa la yaqiinay tuka cambaarle iyo wax farta la isugu fiiqo ayay ahaayeen bulshaweynta ka sokow xigtadooda ayay dayre ka noqon jireen maxaa yeelay sannadahaas wada dhalashadu abtirsiga kuma dhisnayne waxay ku dhisnayd halganka qarannimada iyo midnimada loogu jiro naf iyo maalba inaad u hurtaa ma kugu jirtaa kolba dadka intii ay ujeeddadaasi ku weynayd ayaa walaal iyo xigaale isu ahaa maamuladii gumaysiga intay raacdayna waxay u arki jireen nacab in lala dirira mudan oo haba kugu ekaadeena shisheeyaha ay u adeegayaan iyo iyagu aanay waxba ku kala duwanayn aan haddaba sheekada hoos ugu daadege nin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa intii waxsiinta gumaysiga ku gumowday nacaybka Soomaalidana uu waraabsiiyey ayaa si xun wuxuu u lugoyn jiray dadkii leegada taageersanaa maamulkii Talyaaniga ee xamar ka jiray ayuu garab u noqday sidii jiritaanka xisbiga loo wiiqi lahaa amaba dadweynaha ku soo biiraya loo niyad jabin lahaa ayuu ku fognaan jiray mar uu qabyaalad dadka tuhun ku kala geliyo mar uu madaxda warar beena ka faafiyo mar uu dhallinyarada horseedka ah xabsi la raadso oo saraakiisha gumaysiga uu u gacan geliyo wax uu ula haray ma ay jirin sababaha dartood ayuu ninkaasi bulshadii gobonnimo doonka ahi dayre kaga noqday inkastoo abaalgud ahaan maamulkii gumaysigu xafiisyadoodii xamar uu shaqo wacan ka siiyey muddo hadduu shaqadaa ku jiray isna mahadiyey oo Soomaalidii kale laga ladnaysiiyey ayaa sabab aan la garanayn darteed inta si xun loo qoonsaday beddel lagu dhuftay lagana fogeeyey xamar iyo u dhowaanshaha madaxdii maamulkii gumaysiga ee uu jeclaa xilligaa isaga ah shaqaalaha dowladda kii loo caroodo waxaa laga tuuri jiray gobolka mudug inta uu ugu sokeeyo gobolka badhina uu ugu shisheeyo 1500 kilomitir magaalo xamar u jirta iyo bandarqaasin ayaa laga tuuray bulshadii gobonnimo doonka ahayd iyo lagadii hogaaminaysana waxay taa u arkeen hiil xagga eebba uga yimid waxay aad u sii rumaysteen tubta toosan inay iyagu hayaan Soomaalida tirada yar ee gumaysi taabaca ahina ay tahay mid uu tacabkeed ninkii isaga ahaa markuu halkii loo bedelay tegay ayuu isla hadlay quursigii iyo daymadii naca huwaneed ee Soomaalidii xamar joogtay uu ku qabay wax la mid ah ayuu tanna kala kulmay
malaha taar ay leegadu ka sii hormarisay ayaa waxaa laga akhristay lugooyadii uu bulshada gobonnimo doonka ahayd u soo geystay iyo siduu gumaysiga ugu soo manjaxaabiyey. waa la wada gooyeyoo waa la wada kuuray, waa loo jir xumeeyey oo qofkii uu ka soo horbaxaaba wadiiqaha uu soo hayo u banneeyey. markuu waaye cid la saayirta ayay noloshiiba dacar u dhadhantay. wuu waraacay. bahalla aan muuqanin markay hoosteeda kaga sharqameen ayuu gogashii iyo jiifkiiba ka cararay. markuu hurdo maagaba dadkii uu basaasay ee taladiisa lagu laayey ayaa qof qof u soo dul joogsada. markaas boqolkiiba jinnigii isha caddaa ka nacbaaday. bilo yar kadibna socodkiiba wuu tahli waayey. goobtii shaqadiisa ayuu soo gaari kari waayey. waa la ishaybiyey. show war baan loo hayne 3 maalmood ee lasoo dhaafayba xaraarig buu ahaa. show waa nin aan cidina u xilqabine xanuun iyo gaajo wada jira ayaa u heshiiyey. show shaqaalaha xafiisku markan ay isweydiinayaan nin noolba ma aha oo waa hore ayay naftiiba kala hadfeen. haddase dhimayayso in la aasa ma aha. wax hawshaa u soo degdega oo Soomaali ayaa la waayey. culummo iyo caamaba in la kafno oo inta god loo qodo lagu tukado dabadeedna lagu rido ayaa la isla garan waayey. markuu noolaa sidii laga yeeli jiray markuu dhintay loogama roonaan. ilaa maanta wuxuu meydkiisii ku dambeeyey cidina dhab ahaan uma oga. ha yeeshee waagaa Soomaalidii Boosaaso joogtay waxay u badnayd in aan cidina aasin. waana warka xamar soo gaaray ee leegada iyo dadkeedii loogu soo warramay. waayadaas maansayahankii damiirka ummadda lagu tilmaami jiray cali xuseen xirsi waa warkii uu sida weyn ugu farxay ee ka soo saaray masafadiisii digashada ahayd ee beryahaas sida degdega ah loo wada qaybay. wuxuu cali masafadiisa inoogu sheegayaa inay dhab tahay oo ninkaas geeriyooday aan cidina aasine sida neef bakhtiyey uu dugaaggu u cunay. soomaalidana wuxuu ku canaananayaa howlihii halganka gobonnimada inay ka gaabisayoo xaruntii leegada ee habeenka axadda buuxdhaafi jirtay uu dadku haatan teelteel ku yahay. dhulka oo ay la ahayd inuu hiil la yahay xalay habeenbarkiina inta gogasha kula soo fadhiistay u cawdayna wuu u dayrinayaayo inaan cidina u maqnayn ayuu u sheegayaa. taas ayuu ka hormarinayaa dulucda masafada oo sidaan soo sheegay ahayd digasho ku jeeda ninkii gumaysi raaca ahaa ee markay naftu daysay bulshadii ay ku dhex daysay cid aasta ka waayey. qaybo masafadaa ka mid a ayuu cali xuseen ku yidhi in dawaydba dinisyoonkan dadku kuma dhammaanine wixii leeggu doonayey baa ragna laga daboolay. qalbigii damiinihii docna kuuma raacoe nin ibliis la daawaystay wacdi kuma dawoobee dhulow yaa ku daafici dadkaagii xumaaye. cambarkii dushaadana rag kale iska daaqaye dahabkaad lahayd baa dibad looga saaraye. ilma kaa dareertiyo wax dhan baa daraashaye oo aadna didisaye waa lagu dayaacaye. haddii aan durriyadaadan diirku kuu dhaqaaqayn oo ayan waxaa dooni duhur kuu dhammaynayn dacwigaaga iga daa waxba hay dagaaline. intaa markuu yidhi ayuu u soo jeensanayaa ninkii Boosaaso ku dhintay. dadawsa maqal nin dulin qaaday wax ilow dambeeyee xaqu hadduu ku soo degana ninna duugi maayo qabrigiina loo diidiyo ku dabooli waaye wax dabayshu noo keentay indhur waa dariigay. diiwaanka kuma yaal Shaafici nin diiday dariiqooyinkii dhaaf nabigana dafaariyay. dala malaha aakhiro ifkana darajo beeliyay doofaar wadkii helay u dubaaxin mayno hadduu daanka buuxsadayna rabbi waa ka daadshay. ninkii saa damcaaye ee dubka sare madoobow waan kula dardaarmaya dacwigayga maqaro ha ku daya ninkaa hoogay dhulkuyuu ku diidine. dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.